ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإذن سلام يا دمان أمد الصوماليات وحن إذن كل سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب إلهي بقى مهد إسكالة مركلة يسور تقليي برنامج كان إنان إذن لسو وذاقو دمان رسوشي إلهي إيو أنبيادي سينا نحريس ينبدقليو أين إلهي ويدين إنه قار أهان نبي محمد عليه الصلاة والسلام. intaa kadib kusoo dhawaada barnaamijkii aakhiru samaan talks. waxaan maanta dul istaagi doonaa hadduu eebba yidhaahdo aragtida qur-aanku ka qabo qalbiga bili-aadanka ama wadnaha. hore waxaynu usoo dul istaagnay yaajuuj iyo maajuuj. waxaynu isla garannay haba rumaysanne in yaajuuj iyo maajuuj yihiin dowladaha reer galbeedka. sidoo kale waxaynu soo dul istaagnay aragtida qur-aanku uu ka qabo fikirka. waxaynu isla garannay in fikirku aasaas u yahay fahanka iyo ma garanaysaay garashada diinta iyo waxa caalamka ka socdaba. therefore fikirku inuu kaalin weyn ka ciyaarayo inaad garaadkaaga isticmaasho waqtiga lagu jiro ee aakhiru zamaanka. waxaan kaloo dul istaagnay dembigii ugu horreeyey ee awalu zamaan dhacay ee ibliis galay inuu maanta yahay dembigaasi mid caalamkan aad iyo aad ugu faafay, aad iyo aadna ugu weyn, ummadahoo dhanna ay ma garanaysaay ay si caadiya oo badiihiyaba u sameeyaan. dembigaasna uu yahay dembi la mid ah qofkii sameeyaayey kii ibliis sameeyey oo kale. halkaasaynu iska taagnay. waxa kale oon soo dul istaagnay oon ka soo sheekeynay calaamadaha aakhiru zamaanka qayb ka mid aan soo qaadanay ahayd. waxaan kaloo sidoo kale soo dul istaagnay isbaahaysiga jinka iyo reer galbeedka. intaas waa brograamada so far aan ka soo hadalnay. brograamkan maanta wuxuu xidhiir la leeyahay isla kuwa insha allahu tacaala brograamada aan soo dayno oo dhan dhammaantood connection baa ka dhexeeya. hadda waxa aad u qaadanaysaa sida xidigta oo kale, laakiin markaad ururiso xidigtaas dodka waxaad ku xidhaysaa tii hore, waxaad ku xidhaysaa tii kale, waxaad ku xidhaysaa tii kale. waxaa kuu soo baxi doona markaa sawir guud. sawirkii guud markaa iminka waxbaa ka dhidhiman. hadhow toole markaan dhammaystirno waxaa kuu soo baxaya sawir guud oo caalamkan aad ka helayso. kadibna shakli buu kuu yeelan doonaa. shakligaa waxay ku tusaysaa markaa oo ku tusi doonaa shaybkaa kuu soo baxayay ma triangle baa, ma circle baa, ma rectangle baa, wuxuu yahay baa kuu soo baxaysa. kadibna waxaad ku garan doontaa markaad garato shaybkaa socda, shaybkii iyo wixii ilaahay ka sheekeeyey qur-aankiisa baa oo cadcad baad arki doontaa. iminka waxyaalo badan oo qur-aanka ilaahay ku sheegay dad badan waxay u haystaan inay qur-aanka ku jirto, laakiin wax caalamka ka jiraba ayna hayn oonan la arag. marka wixii oo cadcad baa kuu soo bixi doona oo hortaada iman doona. aan usoo noqonaya su-aalaha markaa tobigeenna maanta inaan ka jawaabno u baahan ayaa waxa weeye, horta aragtidu mata indhaha uunbaa oo haddaama tu kala jirta. tu kale miyaba jirtaa Oxford iyo nimankan maanta aqoonta sheeganaya iyo kuwa jaamacadaha Soomaalidiiba indhaha mooyaane meel kale wax laga arkaa ma inoo sheegeen? waa maya. okay, aragti kale markaa ma jirto miya mise way jirtaa? su-aashaasi waa su-aashaan maanta ka jawaabayno. waxaan kaloo ka jawaabaynaa qalbigu muxuu important u yahay. inuu dhiigga wareejiyo waan garannay oo hadduu ku istaago aad dhimanayso, intaa waan ognahay. shaqooyin kale ma qabtaa? hadduu qabto shaqooyinkaa kale maxay yihiin? shaqooyinkaa kale uu qabtaay biologigu
ma sheegayaa mise ma sheegayo? aqoontu ma tan aan naqaano uunbaa mise tu kalaan jiro? iftiinku ma kan aan aragno uunbaa mise iftiin kale ayaa jira? su-aalahaasaan ka jawaabaynaa. waxaan ku horeynaynaa marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu nagu leeyahay mar waxay leeyihiin indho waxna ma arkaan, waxay leeyihiin dhego waxse ma maqlaan, waxay leeyihiin garaac waxse ma fahmaan. kuwa noocaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay kal acnaam, waa sida lo-doo kale, waa lo kuwaas. lo-du indhana waa leedahay, dhegana waa leedahay. markaa kuwa noocaasi waa lo-doo kale. markaa haddii aad bariiskiiyo baastada cuni jirtay oo kadibna waxba isweydiin jirin oonad fikiri jirin, dee kuwaasaad la mid tahay. haddaad laakiin su-aale isweydiin jirtay ood fikiri jirtay oo caalamku siduu u socdo aad wax iska weydiin jirtay, aad isku eegi jirtay inaad wax fahanto oo diinta fahanto, oo wixii isku kaa qaban waaye inaad isqabadsiiso ama ma garanaysaa siday isku qaban lahaayeen aad ka fikiri weyday, oo waxa maanta socda aad soo saari kari weyday, kal acnaam baad noqonaysaa markaa. haddii kale oo inuu waxaad isweydiinaysay qoladaa kal acnaam la yidhi markaa kuma jirtid. fikirka muhiimadda uu leeyahayna waa ka soo sheekaynay. kuwa aanan fikirinna waxa ilaahay ku tilmaamay waa innaga iminkaba sheegaynaa. ilaahay markaa subxaana wa tacaala qalbiga markuu ka hadlayey aayado aada u tiro fara badan baa ku soo arooray, ilaa iyo 150 bay sare u dhaafayaan, haddayna 180 ba gaadhayn. intaan soo arkay indhaha soo mariyey ilaa 150 waa dhaafayaan. aad bay u badan tahay. ilaahay markaa qalbiga markuu ka hadlayay oo kale, ilaahay qalbiga wuxuu ku sheegay in qalbigu ma garanaysaay uu yahay xubin muhiim ah oo ma garanaysaay diinta fahankeeda iyo garashada ilaahayba kaalin weyn kaga jirta. mar uu ilaahay aragtidaa ka hadlayana wuxuu yidhi yowmalqiyaamaha dadka qaarkood marka iyagoo indhala la soo saaro waxay odhan doonaan qaala yaa rabbi lima xashirtanii acmaa waqad kuntu basiira. ilaahayow maxaad ii soo saartay anoo indhala, soonigii adduunka wax ku arki jira. ilaahay markaa wuxuu ku odhanayaa subxaana wa tacaala, maadaama markaa adduunka joogtay aayadahaygeed arki weydoo ilowday, maanta adigana saasoo kalean ku ilaaweynaa. mar kale ilaahay wuxuu ina leeyahy waman kaana fii haadihi alacmaa fa huwa fi laakhirati acmaa aw adallu sabiila. ninkii adduunkan ku indhala aakhirana waa indhalaaye, weliba waa ka sii daranya. markaa indhala-aanta ilahay ka hadlaya waa teeyey ma tan indhahan caadiga abaa se indhala-aan kalaa jirta? ilaahay baa ka jawaabaya subxaana wa tacaala su-aashaas. waxa uu ina leeyahay ilaahay isagoo isla su-aashaa ka jawaabaya, fa innahaa laa tacmal absaaru walaakina tacmal alquluubu alatii fi lsuduur. waxaa indhabeelaayey indhaha caadigaa maa, laakiin waxaa indhabeelaayey waa qalbiyada ku jira laabta, waa wadnaha indhabeelaa. waaw. mar kale ilaahay halkaasi waa indho, laakiin inuu qalbigu fikiro isla halkaasunbaa ilaahay wuxuu ku leeyahay markaa afalam yasiiruu fi l ard, oo dhulka may maraan. maca alasaf arrintaasi arrin inagu dadka islaamka ee iminka jiraayey aan ku sifownay ma aha. kuwa sacuudiga fadhiyaayey markay dhulka marayaan halkay tagaan ma taqaanaa? las vegas bay tagaan. halka u soo raacda maad garanaysiin washington d c. halka u soo raacda maad garanaysiin eiffel tower bay tagaan baris. maalinta dambena halkay tagaan maad garanaysiin waxay tagaan ma garanaysaa aqalka boqortooyada ee u k bay tagaan. afalam iyo siiruudoodu halkaasay ku kooban tahay.
waa dadka ma garanaysaa dadkeenna maanta islaamka haddii halkee tegi lahayd lagu weydiyo axlada ala las vegas inaan tega bay ahayd yaa ifil tower weli ma soo marin london ay ma arag ya disney world disneyland weli ma tegin meelaha to do lista xidka kugu jirta waxa laga yaabaa inay kuwa yihiin kuwa kugu waaweyn yihiin laakiin markuu ilaahay afulam yasiiru fil ardi lahaa dee kama sheekaynayn disneyland iyo ma garanaysaa white houseka iyo hollywoodka iyo las vegas iyo evil tower iyo london eye iyo kama sheekaynayn iyo taj mahal iyo meelaha kama sheekaynayn dhulka may maraan oo may soo arkaan dadkaan baabiiyey may soo arkaan weynidayda may soo arkaan markaa ilaahay wuxuu yidhi fatakuunu lahum waxay heli lahaayeenba markaa kuwaas haddayba saas sameeyaan haddayba yeelaanba dadku sidaa waxay heli lahaayeen quluubun yacqiluuna bihaa qalbiyo wadnayaal dee fikiraya oo ay wax ku gartaan oo garaad leh bayba heli lahaayeen aw aadaanun yasmacuuna bihaa ama dhego waxay ku maqlaan all in all ilaahay wuxuu caddaynayaa subxaana wa tacaala qalbigu in uu yahay shay wata garaad u gaara itis own intelligence ayuu qalbigu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay arag u gaara oo araggan indhaha ahayn sidoo kale wuxuu leeyahay maqal u gaara oo maqalka dhagaha ahayn intaasba si cad waxaa u bruuf garaynaya inay jiraan qur-aanka kariimkaa qur-aanku markaama wuxuu ku qaldamay maskaxda inuu yidhaahdu doonayo qalbi unbuu yidhi ilahi subxana wa tacaala maya ilaahay garaadka caadigaana caado uga warramay qalbigana gaar buu uga warramay oxford university ma soo saari karto qalbigaa fikira oo wax arka oo wax maqla jaamacadda camuud iyo tahargeysiyadta muqdisho kuma sheegi karaan qur-aanku keliya kuu sheegi karaa halkaa markaynu isla ognahay markaa ilaahay qalbiga markaa mar kale isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay waxaa badbaadaya uun maalinta aakhiro ninkii qalbi saliima la yimaada munaafiqiinta ilaahay markuu ka hadlayay wuxuu yidhi qalbigoogaa xanuunsanaya markaa ninka munaafiqii marka garaad ahaan qur-aankii waa kula akhrinayaa oo madaxiisu waa caadi wax walba waa okay laakiin halkuu leeyay wuxuu leeyahay qalbiga xanuunsanaya qalbigiisu wax ma maqlo waxna ma arko ya mana fikiro bal iska daa intaas xanuun baaba kaga dhaca iyaga xanuun buu ilaahay kaga ridi xanuunkaa qalbiga ku dhacana ilaahay baa bixiya oo keena toos cidduu doonayo dhegaha iyo indhaha iyo ma garanaysaa fikirka waa ka qufulaa oo teebaa la qufulayaa ta qalbigaa la qufulayaa intuu doonayana qufulkaa waxaa loogu daraa xanuun wareeriya intaa markaynu isla garanayno qalbigii haddaba markaynu saa u aragnay uu sidaa yahay sidee buu wax u arkaa aayadaha ilaahay see loo arkayaa markaa dee haddana waa anigan wax arkayee oo iminka adigana arka oo indhahaagii baad adeegsanaysaa oo dhagahaagii baad adeegsanaysaa qalbigu siduu wax u maqlaa goor buu wax arkayaa goor buu wax maqlayaa araggiisa nimanka gaaladii waxay yidhaahdaan aragga qalbiga the third eye bay u yaqaanaan isha saddexaad way raadiyaan kabihii baa kaga dhammaaday kabihii ayaa kaga dhammaaday malaayiin konton bog baa ka qoreen hadda soo maad fahmin qaar badan oo islaam oo ku dayday oo aaminsan the third eye-na way jiraan laakiin wax third eye la yidhaahday ma jirto third eye-gu ilaahay baa qur-aanka caadi ugu sheegay third eye maa
waa qalbiga. meesha kale wax laga arkay third eye ma aha, waa qalbiga weeye. iyagu laakiin waxay u yaqaanaan third eye. kabihii baa kaga dhammaaday. waayo aragtida qalbiga oo wax arkayo supermarketada laguma iibiyo macalasaf. sidoo kale jaamacatul ashar ma bixiso, jaamacatu king faisal ma bixiso, oxford university iyo cambridge iyo harvard iyo camuud iyo ma bixiyaan. halkee laga helayaa markaa? halkee aragtidii markaa qalbiga garanay iminka waan fikirayaa haye I started ma ogtahay ka soo qaad to use my own brain. markaa iminka waan fikiraa, waxbaan akhriyaa, qur-aankii waan dhegaystaa, waxyaalo badan baan sameeyaa. okay, waxaan rabaa markaa qalbigii inuu shaqeeyo. how I can do that baa meesha taa. seen u samayn karaa? qalbigani markaa iftiinkaa ilaahay baa bixiya. iftiinka ilaahay maalintuu ku siiyo qalbigaaga geliyo. iftiinkuna maaha kani ma garanaysaa guruubyada iminka dusheedaba ka shidaan. waa iftiinka ilaahay. markuu ilaahay ka hadlayena ma garanaysaa iftiinka ilaahay dadka dulumaadku ka soo saaraa, nuurkaasuna u soo saaraa. qalbigu markaa waa ka sidaa sameeya, functionkiisu waa ka saa u yahay. qalbigu wuxuu complementary u yahay maskaxda. fikirka garaadku fikirayo marka qalbiguna fikirayo way iskaashanayaan. aragga ishaadu arkayso marka kii qalbiguna shaqaynayo way iskaashanayaan. dheguhu markaad wax ku maqlayso dhegihii qalbiguna markay shaqaynayaan way iskaashanayaan. waxa dhegtan aad ku maqasho ee garaadkaagana uu kuu sheego waxa sii fasili doona qalbigaaga oo ku odhanaya no, sidan way u muuqdaan, sidani waa sidaad u maqashee laakiin sidaa maa, sidani waa sidaad u aragtee laakiin sidaa maa, sidani waa siday maskaxda u fahantee laakiin sidaa maaha. cidda sii saxaysa waa qalbigii. markaa inuu shaqeeyaad u baahan tahay. nebigeennu markaa wuxuu yidhi jidhka waxaa ku jira ma garanaysaay in hadday xumaatana jidhkao dhan u xumaaday. waidaa fasadat fasada jasada kullu. hadday wanaagsanaataan ujeedaa jidhkao dhan baa wanaagsanaaday. hadday xumaatana jidhkao dhan baa xumaaday. wuxuu ku tilmaamay markaa wadnaha inay tahay qalbiga. intaasi qalbigu maadaama uu sidaa yahay markaa waa dabiis kaa shaqaynaysa. ilaahay markaa iimaanku halkuu galaa? markaa iimaanka ilaahay la rumaynayo halkuu tagaa? ama maskaxduu tagaa? iimaanka 55 kutuboo bukhaari qoray iyo ma garanaysaay culimmadii kale qoreen iyo qur-aankooda akhrido garaadkaaga aada la kaashato iimaan ma ku siinaya? no. iimaanku wuxuu tagaa qalbiga. laakiin sidan kale cid walba way u baran kartaa. gaalka iyo islaam cid walba way u baran kartaa. iimaanku markaad bracticekiisii la timaado ilaahay baa wuxuu sheegayaa wuxuu tagaa qalbiga. maalinta qalbiga iimaanku kuu galo ee nuurkii aada hesho maalintaabaad markaa functionkii islaamnimada laga arkayaa. haddii kale waxyaalo badan oon iminka ku dagannay baa dee aynu ku dhex jiraynaa. waxaad arkaysaa qof islaam baan ahay lesaan maalin walba, laakiin waxa uu samaynaya islaamnimaba maa. ta maalin walba innagayna haysata. waayo iimaankii kuma jiro qalbigaaga. halkan buu kuu fadhiyaa weli, hoosku ugumuu dhaadhicin. nuurka ilaahay iyo xikmaddii aynu hore uga soo sheekaynaba haddaba halkee laga soo helaa? dhulkaa idiin sheegoo dhan ka soo heli maysid. halkee laga soo helaa markaa? ilaahay markaa wuxuu leeyahay kuwaas anigaa bixiya, ciddaan doonaana siiyaa. kuma xidhna nasab, kuma xidhna hebel baan saaxiibnahee iga soo dhammee kuma xidhna lacag, kuma xidhna magac, kuma xidhna meeshaad joogto. ilaahay wuxuu yidhi ciddaan anigu doono ayaan siiyaa. laakiin dadaalka lagu helayo haddana ilaahay wuu tilmaamay. maxaa ka mid a afalam yasiiruu fi lardi? waa ka mid a fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha.
إن weynida ilaahay aad u fiirsato ood safar la gasho ood socdaal samayso oo ma garanaysaay aad waxyaalo badan u fiirsato caalamka ka jira fikir aad la timaado sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad qaarixiroo kale u baxdo oo aad fikirto broseska noocaasi waa broseska kuu dhoweynaya markaad tadabbur samayso eed qur-aanka akhrido ee tadabbur ku samayso istabahaasi waa istabaha ku keenaya markaa in qalbigaagu shaqeeyo waa ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka macal markuu ka hadlayo iftiinka si lagu helo isagoon baa inoo sheegaya qur-aanka annaga ilaahay soo kooblay buu ku leeyahay soo ururinay fa idaa qara'naahu fattabic qur'aana markaan akhrinana saan noo akhrina u akhri summa inna calaynaa bayaana markaa kadib annagaa kuu sharxayna markaa akhriska qur-aanka markaad joogtayso eed akhrido kadib buu imanayaa fahankiisu kadib markaa maxaa imanayoo seed u fahmaysaa markaa meesha taala waxaa imanaya nuur baad helaysaa nuur markaad hesho kadib baad fahmaysaa kadib ayaad fahmaysaa markaa haddii qalbigaaga nuurkaasi ku jirinna ama carabiga saa doonto u aqoon ama ingiriiska saa doonto u aqoon ama aqoontaad doonto saa doonta ha ku leekaato qur-aanka fahmi kari maysid qur-aanka fahmi kari maysid diintu waxay u baahan tahay iimaan iimaankuna wuxuu u baahan yahay meel uu galo meesha uu galana waa qalbiga qur-aanku waxa u baahan yahay si loo fahmo nuurkaasi meesha uu galana waa qalbiga hadduuna markaa qalbigu ku shaqaynayn waxba kaa shaqayn maayaan waxaanan isla soo garannay ilaahay dadka inuu garaadkaba u daayey kii isticmaalayna ha isticmaalo kii aan isticmaalayna iyuuna isticmaalin laakiin qalbigu taa la mid maaha ilaahay cidduu doono u ka xidhaa qof walbaa lagaga dhejiyaa cidduu doonana xanuun baa lagaga ridaa kii uu doonana wuu u furaa nuurkiisa loo siiyaa laakiin si fadligaa ilaahay haddaba aad u hesho waxaa number kow muhiima in aad yaqiinsato inay arag kale jiro aragtidaa kale sidaad ku heli lahaydna tallaabooyinka ugu horreeya eed qaadaysa inay tahay inaad la timaaddo tadabbur inaad la timaaddo inaad qur-aanka akhrido inaad la timaaddo khalqiga ilaahay ee caalamkan in aad ma garanaysaa tadabbur ku samayso isweydiiso barato weynida ilaahay aad aragto khalqiga ilaahay uu abuurtayna ay kaa ammaan helaan gaal iyo islaamba waa aasaaska koowaad oo aad noqoto qof laga nabad galay dadka meeshaad joogtana aad wanaag mooyaane ana dhibaato ku soo kordhin oo good conduct aad yeelato waxyaalaha maalintaad yeelato ilaahay subxaana wa tacaala ee tallaabooyinkuu inoo sheegay aad ma garanaysaa ayay marto kadib ilaahay waxba kuma aha inuu nuurkiisa markaa kuu furo nuurka ilaahayna saasaa markaa aad ku helaysaa barnaamijkan maanta waxaan dul istaagaynay inay jirto aragti kale aragtidaa kale oonan hayn ta indhaheenna aragtidaasoo aan laga soo iibsanin stockmarkadada aanay bixinin jaamacadaha caalamkee waaweyn aragtidaas oo ah ta kuu sahlaysa in aad diintaada fahanto sidoo kale ta kuu fahmaysa ee kuu sahlaysa in caalamka waxa ka jira aad aragto waxaan ku soo gulaanadayaa qalbigu wuxuu arkaa caalamka dahsoon waxa ku qarsoon muuqaalka maskaxduna waxay xisaabisaa wixii muuqaalkay arkayso wixii suurtagal ka noqon kara wixii aragtidan sax ka noqon kara ayay xisaabisaa waxyaalaha ku dahsoon ee ku hoos jiri karana waxaa ku tusaya qalbiga waxaan inuu jin wato shaydaan inuu wato waxaan wax xun inuu yahay inuuna hayn waxaa ku tusaya qalbiga laakiin qalbiga laftigiisuna wuxuu leeyahay garaad u gaar ah
culamo waxaan ogahay ma garanaysaa isticmaasha cilmigan xitaa biologyga iyo psychologygaba oo conclusion u dhow ka qur-aanka keenay laakiin conclusionada ay keeneen weli nimankan darwin aaminsan maadaama ay diidan yihiin araggaa inay ka takhallusaan ay rabaan kumay dhiiran oo fakaltiyada iyo jaamacadaha caalamka laguma dhigo laakiin niman u soo dhoweeyey oo qirsan in qalbigu garaad u gaara uu leeyahay way jirtaa oo biology ahaan qirsan barnaamijkan intaasaan ku joojinayaa intaynu barnaamij lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa fii amaanillaah iyo inaad ogsoonaataan aragtidu maaha aragtidan indhaha oo keliya aragti kale ayaa jirta oo ta qalbiga